السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكن مصطفى إكسلانس وماتا شاشة دني صوفريستي صوبتو نيجو صوفريستنا إنه برنامج يحيي له ونيجو قصلنا ونيسو بندقو هاي برنامج كان كهلا إنه ماتا وح أوي هاي وح أكهل دون أنا نشيء جايا تجيه هنا فرع سفي عنه ولا صعدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومضى إسلام كمال والبجوكتان ولكن مصطفى إكسلانس أو آدي إدين سلام يا أنا إذن رجينا سند وعن أو ونكسن مال والبدنيا دافعية أتك جوكتان سومالي وين محمد إن هدي أن ماتا أن كهالله استديو اللي وسوا عسومي إن تاريخ نولد كي يو فنكا سوغان تدنا أن كسوغلي إن هرتا إن وهي درع إن الله يرحمه بحبا قبياها إن أو فنكو حاجة سمارك تفير أن كسر راعي waqtigii ugu horeysay ee aan curiyo eriyo kooban waxaan xasuustaa inay ahayd ilaa iyo 2016 waqtiga aan 16 aan u jeedo waa waqti aan tababar military aan ku jiray xagga ma ka salaamaya mas'uuliyadda sarsare ee ilaalada jamhuuriga كولنيل محمد جامع الدعالي وعيس waxa kale oo xaan ka salaamaya madaxda anigoon magacdooda aan kala saareen salaanta waxaan raacinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti ahna maamulka gudoomiyaha iyo marwadiisa koobaad marwo khadra maxamuud xayd waxa weey marka suugaan laga hadlo suugaantu waa shay alla noo shahay oo kugu dhex jira waxyaabaha alla noo shahay waxa kamid ah in hadii aad music aad maqasho meel uu ka daaran yahay music aad lugta aad dhulka aad ku yarjiida dhacda ah waxa kale oo dhacda marka aad maqal kasta oo music caan yani dhagaha ugu yardiideen aad maqashid inaad iska baqtiiso hadii ay kugu kalifsan naftu waxay ka dhigan tahay walla noo shahay bi'ada ku dhex jirta ee fanka iyo suugaanta iyo qaybihiisa kala duwan marka haddaan ka hadlo taariikh nololeedkayga fanka ilaa iyo yaraan waan iska heesi jiray oo waan iska toocsan jiray waayo waxa igu badnaa in aan waqtiyadii ugu horeysay fanka aan soo galay aan ka bilaabo aroosyada maaragtay ayaa maaragtay lagu soo kala baxaa aroosyada waqtiyada loo baahan yahay fanaaniin xula oo soo baxaya waa xagga kaliyaata ee live na lagaga heeso pianist meesha joogo oo microphone-ka xagga yaalo nin iyo maaragtay kaartidii iyo nin iyo itaalkii uu kaga baxayo waxaan heesihii aan waqtiga maaragtay aroosyada aan qaadayay waxa kamid ahaa hees aad iyo aad u kala duwan oo waayo music door cayn buu u kala kacaa marka teembada laga hadlayo yani tii samba ayaa lagu tumeeyaa music shidan ba lagu daarayaa waa inaad heesaha isdaba geliso waa in marka reegayga lagu galo ay sanad heeso saas ku daba galaan foxiga sida dali marka hadba pianistu inta uu marka aan fartiisa kula jiro waa inaad wixii aad heesa aad xafidsan tahay adigoo xarig yani music teembadiina eegaya inaad raacdid waxaan xasuustaa waqtiyadii ugu horeysay waad ka maalinka kuugu horeysa microphone aad qaadato waad cabsanaysaa ala in kastoon aad iskaga yaraa waqtigaas waxyaabihii aan ka qaadi jirnay aroosyada haddaan xaggan ka sheego waxa kamid ah habeenkii ugu horeysay aan aroos ka dhaadhaco iyo asxaabtii igu casuumtay inaan heesi karo oo yani niyadda ii dhistay waxa kamid ahaa muraad xoosh axmed walaal igu qaali ah oo xaggan ka salaamayo sharmarke ayaan xaggan ka salaamay sharmarke yuyu baa laga yaqaanaa roble xasan jaamac warag maaragtay xaafadda aan deganahay iyagu xidiga ka ahaa number 1 haddaan maanta fanaan ahayna iyaga dartood baan fanaan u ahay warag aan hadii jeerday yani sida noo sidaayay aniga iyo walaalkay akram shiva oo xaan ka salaamay isaga iyo marwadiisa goobad habeenkii ugu horeysay arooska ka dhacnay waxay ahayd bandargariid ba arooskaas ka dhacaya arooskaas marka lagu yiraahdo bal hay waxaad haysiye fagaaraha soo dhigday habeenka kugu horeysay tahay ee bulshada hor joogsanayso horta hadii fanka uu kugu sii jiro isku siddex nooshahay cid aad ka cabsanaysay ma jirto waxaan yiri waan qaatay microphone-kii in kastoon aad iyo aad u dhageysan jiray awala aadan daheeye heesihiisa waxaan dhowr heesood baan isdabgeeyay waqtiga ahaan oo aan masraxii aan ku ruuxay waana waqtigii aan iri hadii toolbaad heesi kartaa in kasta oo baraha bulshada aan soo hor fadhiisan heesaha waxa kamid ahaa أيامها عسيقلي إله عادل بركي
kuwa khayrku caane waxyiga laga calaameeyey maalin caadha lahaynu caf iyo farax la caadaystay subax ciida adiga dhashiyo yowmal carafaadee ogow camal samaantaad hablaha caara dheer tahay carshigay ku taala sadku caadil ku qoray haddii aan nasiibku calmaday waa cawo ilaahee carfiyo udgoonkeeda noqo laabta ku xugan ma ogidee ogaasoy ma ogidee si aan baledka lagu waraag inaan ku arooso aynigaadu sidataa u orda had iyo jeere ma ogtahay ma ogide qalbiguna agtaadu macaaney udgoone ku nabiyo unugyada dareenkaad amarkooga haysaaye ma ogtahay waa heesaha maaragtay aan isdabagelinaya hadda laba hees baa isdabageliyay bay ka dhigan tahay markaan saan igu heesayo inaan khaldamaha moodina waa heesu sidaas maaragtay marka ritmiga heeska uu soo dhamaanayo ayaad hees kala qaadanaysaa inkastoo arooskayaga aamin calool cadee kuwii camalsan aamin caadilkow ka yeeldhahee arooskayaga aamin calool cadee kuwii camalsan aamin caadilkow ka yeeldhahaa hees baa jira aan ugu jeclahay haddii fanaan ahaan heeskeed qaadi lahay layga idhaahdo heeskaasi waa hees micno weyn igu fadhiya oo markii aan dhageystay ilaa iyo maanta wallaahi aan mar walba aan iska dhex daawado ma ogtahay aniyo adi axadiba u dhaxeeyo ma ogtahay midkeenii oofin waaye wacadka ifkaa lagu kadeediyo abalkiisu waa naar abajahal agtiise balilaali balilaali ajasha akhira dhib weeyo kama eed baxay sidee waa heesaha ugu xiisaha badan ee marba marka dambe haddaad dhegaysataan aad iska dhex arkaysaan